maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa u fariisatay dhageysiga dacwad loo haysto 4 ruux oo la aaminsan yahay in ay mas'uul ka ahaayeen qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay goobo dadka ay ku badan yihiin oo ay ku yaala magaalada Muqdisho. 4 ruux ee dhageysiga dacwadooda ay ka socoto maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa la kala yiraahdaa Cabduqaadir Abuukar Shaacir Maxamed, 2 Maxamed Cumar Akiila Cabdiraxiin, 3 Daawud Maxamed Cali Maxamuud iyo ruuxa afraad oo isna la yiraahdo Cabdullaahi Ibrahim Geesi. Dhammaantoodna waa eedeysanayaal. Ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada Kabtan Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa maxkamadda ka hor akhriyay dambiyada raggan lagu soo eedeeyay. sida ku cad eedda loo jeediyay eedeysanayaasha 4 eedeysan ee maxkamadda taagan sida aan eedayna u soo kala qaadnaba hal dambi ay wadaagaan ayaa jira oo ah in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab sidoo kale waxaa jiro qaybo ay ku kala bedelan yihiin waxaan rabnaa maxkamadda inay siiso fursad si aan u kala qaadno 4 eedeysane waqti kooban samari kooban ama waqti gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xeerlaalinta dacwadda soo oogtay waxa uu ka dalbaday in ay soo dhameystiraan dhammaan cadeymaha la xiriira kiiskan. qaraxii ka dhacay maqaayadda hotel Weliye 13 bishii 3 iyo qarax kale oo ka dhacay maqaayad ku taal agagaarka wasaaradda amniga 5 bishii 4 qarax kale oo ka dhacay Bar Italia 8 bishii 5 iyo ugu dambeyntii adigoo gaari qarax wada sido in lagu soo qabtay ciidamada ku soo qabteen intaas lagu eedeynaya. Daawud Maxamed Cali Maxamuud waxa si gaar ah lagu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab una qaabilsaneed qaybta faafisa afkaarta al-shabaab adigoo ka shaqeeya gobolada Shabeellada Hoose iyo Banaadir. sidoo kale waxa lagu eedeynayaa in aad taakuleen gaar ah sii jirtay qaybta fulisa qaraxyada adigoo lacagaha siin jiray eedeysanayaasha koowaad Cabduqaadir Shaacir iyo eedeysanaha labaad Maxamed Akiile markii ay qaraxa fuliyaan kadib. Daawud waxa lagu eedeynayaa in aad shabaab ka tirsan tahay waxa lagu eedeynayaa in aad ka mid tahay qaybta faafisa afkaarta al-shabaab. xafiiska xeerlaanta waxay maxkamaddu amraysaa in la soo diyaariyo la keeno baarihii dacwada maxkamadda la hor keeno waxay kaloo amraysaa kaamiraadka iyo muuqaalada meesha ku qoran iyo qalabkii lagu soo bandhigi lahaay haddii ay wax ku soo kordhinayaan ay maxkamaddu hor keenaan qalabkii lagu soo bandhigi lahaay maxkamaddana dib ayaa loo dhigay kiiska dacwada la xiriirto 4 eedeysanana inta Nuur Maxamed Cali Universal TV Muqdisho.